kadib markii maanta barqadii degmada Guraceel lagu qabtay nin doonayay inuu isqarxiyo xilli ay halkaasi munaasabad ka socotay ayaa waxa faahfaahin ka bixiyay falkaasi maamulka Galmudug wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf Ibrahim ayaa sheegay in ninkaasi xilliga la qabanayo uu dalbaday inuu khudbad gabay ah uu ka jeediyo munaasabada lagu baroordiiqayay askartii ku geeriyootay dagaalkii sanad ka hor al-Sunna iyo al-Shabaab ku dhex maray gobolka Galmudug hase yeeshee ciidamadu ayaa ka shakiyeen waxa uu sheegay in hadalkaasi kadib mid kamid ah askarta uu baaritaan ku sameeyay kadib markii laga shakiyay intaasi kadib lagu arkay waxyaabaha qarxa sidaasina lagu qabtay laguna furay qarxii ku xirnaa walaal maanta waxay ahayd 17 bisha Ramadaan oo maamulkan halkan degan dowlad goboleedka Galmudug hooday oo fasaxa maalintaas oo loo fasaxo dadka shuhaadada dadkii ku shahiiday diinta islaamka difaaceeda oo ugu horeeyaan dadka laga soo bilaabo dabadeedna ay hadda munaasabada ay loogu magac daray dadkii hadda la dagaalanka argagixisada deegaanada gobolada dhexe ku shahiiday oo ku dhintay maalintaas oo fasaxna ah xaflad muhiimana loogu dhisay oo maamulka iskugu yimid degmada Guraceel ayaa maanta waxa isku dayay inuu qarx uu ku xiran yahay ku qarxiyo ninkaasi markuu ku soo dhow yahay meesha xafladu ka dhacaysay ay joogeen madaxda sare ciidamada amniga ayaa ka shakiyay dabadeedna gacanta ku dhigay waxayna ku guuleysteen asagoon qarixii samaynin inay qisada qabtaan qarixina ay ka furaan dabadeedna qarixina gooni bay u hayaan oo la hayaa asagiina waa la hayaa walaal ninkan wuxuu sheegay inuu ka yimid asagoo dhinaca koonfurta dabadeedna dhinaca qalbuur uu ka soo wareegay mudada la qabtay muddo dhow weeyaan haddana baaritaanadii ayaa ku socda ninkan horna way u dhigay in dadka isqar gabagabadii waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug Saadaq Sheekh Yuusuf Ibrahim in ninkaasi baaritaan dheeraad ah lagu hayo isla markaana saacadaha soo socda warbaahinta loo soo bandhigi doono